Khomeiniga geeriyooday waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto. Kani waa Saddam Hussein. mar uu dagaal ka dhaxeeyay isaga iyo Iran ayaa Khomeini hogaaminayay dalka Iran uu geeriyooday. kadibna wuxuu yiri ma wanaagsana qofku mar hadduu dhinto in la hadal hayo. hadalkiisu maanta laga bilaabo halkaas ayuu naga xidhan yahay. Khomeiniga geeriyooday waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto. isagu Ilaahay ayuu u noqday oo xisaabtiisu halka alle ay ahaatay. waayo annagu qofka geeriyooda waxaan dhahnaa Ilaahay u naxariisto. dooni maayana amba inaan maqlo hadal hayntiisa waayo waa meydkula karaama ayuu leeyahay. mana doonayo in la sii hadal hayo. waxaanan saxaafadeena faraynaa in aanan mar dambe ninkaas meydida la soo hadal qaadin. mar haddii uu geeriyooday khalaas waa uu xidhan yahay hadal hayntiisu. xisaabtiisu dhan kale ayay u wareegtay. waa kuma haddaba hogaamiyaha maanta sidan oo kale u dhaqmaya. Saddam Hussein wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan marka dhanka adeegiisa iyo laga yimaado quwadiisa. wuxuu ahaa nin qalbi jilicsan jecelna markasta wanaaga. Iran oo markaa isku hayeen caqiido diimeed iyo dhulba ahdaabu marba geeriyooday Khomeini. innaga dhankeena in la soo hadal qaadaa waajib ma aha. haddaynu nahay Soomaali innaga qofka geeriyooda ee cadawtinimo naga dhaxayso waxa dhacda in aan mar walba jecelnahay hadal hayntiisa iyo fadeexayntiisa. taasna waa laga wanaagsan yahay mar hadduu qofku geeriyoodo in la iska cafiyo waayo xisaabtiisu xagga alle ayay ahaatay.